Okay, recording kana waa inoo bilaabi doonaa insha allah si ardayda dambe u dhegeysato. Waxa aynu ku jirnay waxay ahayd weli qaybihii runtii aynu ku tirargelinaynay suuqa. Hadday hore waxaynu usoo qaadanay sida loogu tirargeliyo leveliska. Waxaa sidoo kale aynu qaadanay waxa loo yaqaano allahu mustacaanay middle of the trend isagana loo tirargeliyo ama continuationka waxa loo yaqaano ayaynu tirargelaynay ayaynu qaadanay. waxaynu soo kala qaadanay pre-codeka last week aynu qaadanaynay walow casharo kala badanay nooga harsan yihiin. sidoo kale trade link ayaynu qayba ka qaadanay. ardaygaas Mr. Khadar la yidhaahdo codka inta badan iskama xidho, codka iska xidho please, codka iska xidh waayo arday kale ayaa cashirka dhegeysanaysa. markaas haddii meeshii laba hadal ka wada baxaan waxay noqonaysaa mushkilad bay noqonaysaa. xagga dambe insha allah su-aalaha idinku furi doonaa. okay, marka waxaan samayn doonaa insha allah waxaynu qaadan doonaa si caadadaynu ahayd hal cashar oo aynu ku qaadan doonaa as practical baynu insha allah u qaadan doonaa maanta inagoo ku tirargaraynayna markaasi qaybihii aynu soo qaadanay baynu ku tirargarayn doonaa ahaa waxa loo yaqaano middle of the trendiga iyo leveliska iyo third lineka saddexaas insha allah isku dii doonaa inaan ku tirargarayno inta sessionka aynu ku jirno. waxaan soo kale qaybta dambe idin furi doonaa waxa loo yaqaano allahu mustacaanay su-aalaha ayaa idin furi doonaa. sidoo kale waxaynu isha marin doonaa sababiskii ardaydu inala wadaageen intii aynu kala maqnayn ama xiisadii ku xigtay intii u dhaxaysay sababiskii ardaydu ay nala wadaageen aynu insha allah iyagana isha marin doonaa. wixii su-aala kasoo baxana insha allah waa ka jawaabi doonaa. okay, toos baynu insha allah u gudageli doonaa. okay, sidaa ogtihiin qofku marka hore aynu sheegnay ama marka aad tirargaraynaysid waxa ugu muhiimsan ee runtii lagaaga baahan yahay waxa weeyaan before aanad suuqa soo gelin ama markaad suuqa soo gelaysid in runtii uu kuu cad yahay nidaamka ama waxaad isticmaalaysa horta inuu kuu cad yahay. haddii runtii suuqii aad soo gasho adigoo garanaynba nidaam aad tirar qaadanaysid ama sabab aad tirar u qaadanaysid adoon garanayn haddaad soo gasho macnaheedu waxa uu ka dhigan yahay dee macnaa kandhalkii dhaqaaqaba muhiimadiisa waxay kaa noqon doontaa inaad raacdid. laakiin haddaad rules cayiman ama shuruudo cayiman raacayso waxaad ogaan doontaa tiradhka aad qaadanayso. sidoo kalena waxaad ogaan doontaa tiradhka aanad qaadanayn ee aad markaasi ka joogayso ayaad runtii garan karaysaa. okay, maadaama sidaa tahay inagu maanta waxaan isticmaali doonaa baynu sheegnay middle of the trendiga iyo levelka iyo trade lineka saddexaas insha allah isticmaali doonaa oo aynu runtii ku trade garayn doonaa. waxba ku noqon maayo ruliskii oo waxaan kolley arday kasta oo halkan soo gaadhay ama arday kasta oo hadda halkan ku jira oo casharkan dhegeysanaya waxa waajib ku ah inuu garanayo sida loogu tirargeliyo waxa loo yaqaano middle of the trend iyo sidoo kale inuu garanayo waxa loo yaqaano leveliska, inuu sidoo kale garanayo sida loogu tirargeliyo trade lineka oo marar badan aynu ka hadalnay iyo breakoutka laftirkeeda inuu garanayo. sidoo kale inuu structureka suuqa fahansan yahay ardaygaasi oo wax allaaliyo wuxuu runtii kaga noqon karaa ardaygaasi aysan jirin. sababtan saa u leeyahay waxa weeyaan waqtiga intii badnayd waxaynu kusoo bixinay waxay ahayd inaynu structureka iyo ruleskaas oo dhan insha allah fahno. okay, waxaan sugayaa lacago iyo calaamadsan baa jira oon levelis ku yara calaamadiyey kuwaas marka inoo soo gaadhaan ama leveliska aynu doonayno ama meelaha aynu doonayno inoo soo gaadhaan directly ama si toos aynu insha allah u qaadan doonaa. okay, hadda lacagtan oo kale halkaas sare waxaa ka muuqda level baa ka muuqda oo waa level walow aan loo soo dhaweyn oo laga durugsan yahay laakiin maxaa ku jira one level baa markaa ku jira halkaas sare level baa ku jira oo ah kandhalka xooga badan ah. sidoo kale waxaa jira haddii isaga la ixtiraami waayo level ka sarreeya ayaa runtii jira. labaduba runtii waa level. meesha uu kandhalku ka bilowday keligii waa level, halka labada saddexda kandhal kasoo bilowdeenna waa level. kandhaliskaa kasoo bilowday daraadoodna umay noqon level, waxay u noqdeen structureka suuqa iyo ruleskii inagoo raacayna. okay, lacagta waan iska bedeli doonaa yab walow aan arko inay samaynayso yab tiradhka waan qaadan doonaa insha allah. halka waxaad arkaysaa inay ku samaynayso continuation move inay samaynayso yab hadda tiradhkaas waa qaadan doonaa. sababta aynu u qaadanay maxay tahay? sababta aynu u qaadanay kandhalka bartaa ku jira waxaad arkaysaa inuu batan sameeyey, kana uu sameeyey maxay batan uu haddana aan filayo in sidii oo kale loo samayn doono batan ilaa iyo halkaas sare la tegayna kor loo socon karo. that's way baan tiradhkaas u qaatay. halka uu suuq iga geliyey waxaa laga yaabaa inuu suuq soo xidhayo waxa loo yaqaano imbalancega suuqa oo uu dib u yara baxayo oo kandhalkii ka horreeyey uu soo testigaraynayo laakiin waa lasoo abgarayn doonaa amase kor baa loo soo bixin doonaa.
okay waa wada sugi doonaa insha allah waxa uu ku dhamaado muhiimadda candleka hadda halkaa uu inaga geliyena waa maxay cilada inagu macnaa kumaynu sugin ama kumaynu sugin inaynu meel hoose ka galno laakiin suuqa ayaa nagu tuuray waxa loo yaqaano entry aan ahayn keen waana sababta keentay in hadda candleka laftirkiisa uu ku xidhmo sel uu ku xidhmo inuu candleka laftirkiisa uu ku xidhmo sel wala aynu weyn garaynay sidaynu doonaynay uu noqday candleka muxuu ku xidhmay meesha aynu doonaynay meel ka hooseysa ayuu ku xidhmay laakiin waa weyn garaynay sababtaynu u raacno waa maxay waa continuation move ayaynu runtii u raacnay continuation move xeerka ugu muhiimsan waa maxay waa xeerka laftiga ah ee momentumka ah inaad garanayso hadduusan xeerkaas kaa khaldan yahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay in waxaad isticmaalaysaa aysan kuu shaqaynin okay waan ka gudbi doonaa insha allah next trade baan insha allah baari doonaa okay hadda lacagtan oo kale ma arko janiska ma arko marka laga reebo halkan hoose oo ay janis ku leedahay oon calaamadin doono iyo halka sare oo iyaduna runtii aan dhaweyn amase xoogaa ka durugsan gaar ahaan halka ka sarreysa aad bay runtii uga durugsan tahay laakiin maxay noqon doontaa iyada laftirkeedana waxay noqon doontaa level haddii laynoo yimaado okay lacagtan oo kale maxaa ka muuqda janis baa ka muuqda janiska ka muuqda muxuu yahay janiska ka muuqda waa level haddii timaado haddii kalena waxa ka muuqda waxa loo yaqaano continuation yep hadda tradekan oo kale yep sawiro noqdo directly baan insha allah u qaadan doonaa kaleer tradekaas maxaan u qaatay si directly ayaan runtii u qaatay waayaan tradekaas u qaatay tradekaas waxaan ku qaatay as a continuation move baan ku qaatay waayaan continuationka ugu qaatay horti leftiga waxaan ka hayaa ruulkii ruulka kasii muhiimsan ee isagana hadda aan ku qaatay waxa uu yahay maan sugin hadda waxa loo yaqaano confirmation candle maan sugin waay aan u sugi waayey confirmation candle waan calaamadsan doonaa iyada laftirkeeda haddii la yimaado si aan uga trade gareeyo walow aad muhiimtiin breakout lagu sameynayo oo meeshiiba aan la ixtiraamin waxaan tigi doonaa kan kasii sarreeya ayaan tigi doonaa qasab maaha meeshaan doonay inay ixtiraamto laakiin waxaa khasaba meesha aan dhigtay inaan garanayo sababta aan u dhigtay iyo ruliska aan u dhigtay okay lacagta kusoo noqdo sababta hadda tradekan u qaatay maxay tahay runtii sababta tradekan aan u qaatay marka laga yimaado skillka guud ama dee macna qolofta guud ee structurekeena iyo waxaan ku trade garayno hadda candleka bayga ah ayaan ku qaatay maadaamuu yahay kandhi markii hore soo dhacay kandhal markii hore samaysmay oo isaga laftirkiis uu mar kale soo noqday uma baani waxa loo yaqaano confirmation kana that's why baan tradekaas directly uga qaatay su'aalo horena kandhalkaas kale waan ku cadeeyey inagoo runtii ku trade garayna okay suuqani waxa uu weli kusoo socdaa levelkeennii ma soo gaadhin waxaad moodaa inuu ka jiro waxa loo yaqaano gaab badani uu jiro okay qodobka runtii ugu muhiimsan waa maxay waa inaad garanayso runtii waxaad isticmaalayso inaad ixtiraamtaana sorry waxay kaaga baahan tahay waxa loo yaqaano patient haddaanad patient lahayn runtii waxaad isticmaalaysaa kuma shaqayn doonaan waxaad noqon doontaa qof suuqa barbar carra oo runtii aan sida uu doonayo runtii uusan ugu shaqayn runtii ayaad noqon doontaa runtii okay waxaan sugayaa inaan confirmation helo si aan u trade gareeyo insha allah still waxaan arkayaa inaan hayn rule aan ku trade gareeyo yab candlekaas hadduu soo dhaco oo confirmation candle noqdo waa trade gareyn doonaa haddii kalena lacag kale ayaan runtii baaran doonaa okay saddexdan lacagoodba waxaad moodaa inay janiski abuurayaan inay janiski abuurayaan baad moodaa okay hadda lacagtana kale u fiirso still confirmation ma hayo okay yab tan baan hayaa confirmationkii waa trade gareyn doonaa 30 second yab kale lacagtaas waa trade gareynay si directly runtii waa u trade gareynay waayaan u trade gareynay GBP Jabai waxaan ku trade gareynay hadda ma aha continuation move ma hadda waxaan ku trade gareynay runtii waxa weeyaan sidaad arkaysaan waa levelkii oo aynu ka helnay the shooting star candle loo yaqaano oo ah xaqiijintii u dambeysay ee aynu sugaynay aynu ka helnay that's why baynu tradekeena si directly ugu qaadanay lacagtana kale waxaad iyadana arkaysaa inay level timi levelkaas ayaynu insha allah idinla kusugi doonaa okay weli waxaa hadhay 20 second meelahaasa hadhay oo ka harsan in uu dhammaado sessionka aynu ku qaadanay ama 1 minute aynu ku qaadanay okay levelka xaqiijintiisa maxaa ku xiga inaad candleka meesha ku xirmay aad isagana garanayso hadda lacagtan oo kale GBP CHF levelki waa timi laakiin waa dhaaftay saad arkaysaan laakiin tan oo kale maxay samaysay dee confirmation candlekii bay siisay maxay siisay confirmation candlekii aan sugayey ee aan gaadayey baan ka helay maadaama confirmation candlekii ka helay waxaad arkaysaa hadda inuu gaab jiro oo gaabka runtii jira markaan hore u soo sheegnay candleku marka uu yahay shooting star iyo marka uu yahay inverted hammer inay kala awood badan yihiin
maadaama shooting star yahay that's way waynu traderkeena si directly ugu qaadanay ayaan odhan karnaa. Okay, waxaan soo qaban doonaa lacag kale ayaan insha allah soo qaban doonaa ilaa 6 trade 7 trade insha allah qaadan doonaa. Okay, hadda lacagna kale maxaan ka arkaya continuation baan ka arkaya. Yep, maadaama continuation ka arkay ma directly baan u qaadanaya maya, maxaan check garanayaa left, maxaan soo check garanayaa left, waxaan soo heli doonaa levelka loo socdo ayaa soo xaqiijinaya. levelka loo socdo markaan soo xaqiijiyaan levelkii soo tigareeyo maxaan leeyahay waxaan ka sugaaba waa inaan soo helo ruleski kale ahaa confirmationska ama continuation ka dhan aan ku qaato ama button aan ku qaato ama another rule kale aan ku qaato waxaan doonaa ku qaato, laakiin waa inaan xaqiijiyo waxa loo yaqaano waxay sameynayso. Yep, hadda waan qaadan doonaa clearly. Okay, hadda traderkaasna waan qaadanay, waa traderkeeni afraad baan filayaa inuu yahay. sababta aynu qaadanay runtii maxay tahay, waxaynu qaadanay button waa inaan sharxi doonaa insha allah. kanoo kale waxaan arkaynaa in weli levelkeeni aan la soo dhaweyn GBP USD waan iska saari doonaa maadaama breakout samaysay. hadda ma doonayo inaan isticmaalo breakout, inaan ku isticmaalno sessionkan inaan isticmaalno. Okay, okay, because period out laftirkeeda tradeski ama maalmuhu dambeeyay waa qaadanaynay, waxaan ku qaadanaynaa ruliskeeda haddaad raacdo waad trade garan karaysaa. Okay, hadda candle-kana kale u fiirso maxay meesha ka sameeyay runtii wuxuu ka sameeyay continuation move. Okay, hadda lacagtana kale u fiirso runtii maxay sameynaysaa waad levelkii baad timi walow qofka ay usoo saartay maxay usoo leedahay. Okay, tan horta inoo dhamaato waxaa ka hadhay sikina ayaa ka hadhay maadaama aynu qaadanay ruliskuna inoo saxan yihiin sessionka ayaynu dhowraynaa. Okay, waxa ku dambeeyo 3. Okay, 1. Yep, okay, good. Okay, isagana runtii waa weyn garaynay ama sidii aynu doonayna runtii waa noqday. tanoo kale hadda ma trade garaynayo sababta aynu trade garaynayn we don't have reversal candle, ma hayna reversal candle. candlekaasoo kale waa candle wax badan aynu hore uga hadalnay, waxaynu sheegnay inuusan ahayn waxa loo yaqaano reversal candle. haddaad reversal candle-ka u taqaanana macnaheedu waxay ka dhigan tahay reversal candle-ka ayaa kaa qaldan ee ku noqo casharadii aynu kaga hadlaynay candle psychology-ga gaar ahaan noocyada candleska. Okay, waan ka gudbi doonaa insha allah. another trade baan soo qaban doonaa ama another bear baan soo qaban doonaa. hadda lacagtana kale waxaan arkayaa in candlekaas runtii strong candle yahay ama levelkaas uu candlekaas strong candle yahay laakiin uusan sidii aan doonaya u samaysmin. Okay, loona soo dhawin runtii waan kusoo noqon doonaa. waxaan soo qaban doonaa another bear baan soo qaban doonaa. lacagtana kale waxaan arkayaa inay sameynayso waxa loo yaqaano hadda trend yar oo aba oo minor trend ay ku jirto, inay ku jirto minor trend waa markaan si guud u fiiriyo. laakiin aniga hadda saas macnay tarmayso waa inaan san usoo ballaariyo, waa inaan sida tan usoo ballaariyo because de wixii waxaan doonaya inaan candle u trade gareeyo oon levelkayga xaqiijiyo. markaas waxaan ku arkaya waxa weeyaan marka aan meeshii soo ballaariyo ayaan arkaya, laakiin haddaan meeshii waxaan ka dhigaan yareeyo wax allaali waxaan arkaya haba yaraatay ma jirto. hadda levelkaasaan qabsaday. Yep, levelka waan calaamadsan doonaa clear, waxaan samayn doonaa waan calaamadin doonaa. Okay, good. markaan calaamadiyo maxaan leeyahay waxaan sugi doonaa inta la imanayo. kanoo kale waxaad arkaysaa candlekeena waa kana tii bixiyna sell buu noqday runtii waa sababta markii ay traderkeena uga joognay ee aynu lahayn candlekaas is not reversal. hadduusan candleki reversal ahayna ma xaqiijin kartid, ma xaqiijin kartid. hadhow haddaad doosgaraysana maxaad leedahay cid kale canaananaysa naftaada canaananaysa aad leedahay candlekani reversal kana waan uga shakisanaay waa aan u qaato. intaad markaa naftaada canaanan lahayd dee traderkiiba ka joog iska badaa traderkii oo another trader kale baadho. Okay, hadda u fiirso tanoo kale waan sugi doonaa insha allah. maxaan ka sugaya traderkayga reversal candle baan ka sugaya. hadda weli maan trade garayn, waxaan weli sugayaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano inaan helo confirmation. still ma hayo confirmation. hadda candlekaas is not reversal candle, this one is not reversal candle ma aha sheekho, reversal candle ma aha because haddii candleku uu sida taas yahay noocaan yahay runtii reversal candle looma yaqaano. Okay, waxaan sugi doonaa inaan lacag kale soo qabto weli, laakiin GBP Jabai waxaan ka leeyahay mustaqbal baan ka leeyahay oo inaan trade gareeyo ayaan doonaya maadaama levelkaygii aan lagana soo noqon kor iyo hoos labadaba runtii loo dhow yahay oo aan weli la dhaafin. Okay, okay, still waxaan sugayaa waxa weeyaan okay connection-ka muddo inuu culays ku jiro. waxaan sugayaa muxuu yahay, waxaan sugayaa in lacagta runtii si fiican igu soo kacdo. Okay, okay, waan kusoo noqon doonaa. Yep, hadda lacagtan kale maxay timi runtii level bay timi. Yep, okay, yep, GBP Jabai labaduba runtii maxay joogaan level ayay joogaan. labaduba maxay joogaan labaduba level ayay runtii joogaan. soo noqoto GBP Jabai. Yep, tan kale waan trade gareyn doonaa because confirmation kan haystaa, laakiin euro GBP we don't have a confirmation. euro GBP haddaad isticmaalaysid waa inaad isticmaashaa the breakout rule, waa inaad isticmaashaa the breakout rule. hadda laakiin inagu ma isticmaalino breakout, ma isticmaalino waxaan isticmaalinaa qodobadii kale ayaynu isticmaalinaa
levelkaas hoose ayaan qabsan doonaa inta la imanayaan sugi doonaa haddii halkaa laga noqdana dee lacagtaa waa ka samri doonaa oo macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan iska daayan lacag kale baadhaan trade garayo because suuqa keligeed ma dhex taalo suuqa keligeed ma dhex taalo hadda inagu tayna tradekeeda qaadanay mee waa tana tradekeeda waxaynu qaadanay lacagta loo yaqaano jabai ayaynu qaadanay ama japanese yen ayaynu qaadanay okay waa sugi doonaa sessionkeeni weli ma dhawa waxaa ka hadhay dhowr iyo 10 sekin baa ka hadhay inta sekinadaasi dhammaanayaan waa sugi doonaa insha allah inaynu weyn karayno okay sababta tradekaas waxaad arkaysay candlekii hore inaynu sugaynay sababta aynu sugaynay maxay ahayd inaynu helno the confirmation inaynu helno okay waxay wadaagtay draw ku xidhan miso okay we gonna loss yep tradekaas waa loss garaynay okay this one baan isku day doonaa inaan qaato laakiin waa iga kor booday lacagtan baan kusoo recover garan lahayn laakiin waxaad arkaysaa inay runtii inaga dhaaftay ama se meeshii aan ugu talagalnay dhaaftay waan iska tegi doonaa okay lacagtan aan kusoo noqdo ta waa loss garaynaa runtii sababta aynu loss garayna waxa ay u eg tahay candalka horti meesha ku xidhmay ama hore waxaynu u sheegnay candalku marka uu runtii selka yahay iyo marka uu bayga yahay inuu kala awood badan yahay waana sababta aynu had iyo jeer u isticmaalno candleska selka haddii xitaa aynu loss garayno inagoo saxan macnaheedu waxay ka dhigan tahay dee suuqa wax macnaa ma jirto boqolkiiba boqol kuu shaqaynaya ma jiraan laakiin maxay ka dhigan tahay waxaa waanay 97 to 96 aad runtii win garaynayso afar trade baynu qaadanay kii shanaad baynu loss garaynay bay ka dhigan tahay okay waxaan isticmaalayaa hadda tan oo kale waxaan isku dayi doonaa inaan iyadana rule ka daydaydo okay isha waxaan ka arkaa trade aan qaadan karo ayaan isha ka arkaa anoo weli tool isticmaalin tradekaas wuu dhaafayaa directly baan qaadan doonaa yep tradekaas waan qaadan doonaa clearly tradekaas waan qaadan doonaa hadda maxaan ku qaatay hadda waxaan ku qaatay as a trade line ahaan ayaan runtii u qaatay oo tradekaas waxaan ku qaadanay trade line inagoo isticmaalayna ayaynu qaadanay waxaan ka arkaa runtii isha ayaan ka arkaa dib baan ka sawiri doonaa oo hadda ayaan runtii sawiri doonaa laakiin markii waxaan soo leeyahay waxay ahayd in tradeku dhaafo ayaan runtii ka baqanay okay waxaad arkaysaa runtii tradekaas sababta aynu qaadanay waxaan odhan karnaa mar kaste oo aynu suuqa arkayni waxa uu sameynaya higher high ayuu sameynaya trade linka maxaa runkiisa koowaad ahaa in suuqa uu ku socdo trendi saxa uusan suuqa consolidation ama ranging market ku jirin hadda suuqani waa uptrend maadaama uptrend yahay this move another move kale ayaan doonaya farta ka bilowdo oo uu buy aado okay confirmation maxay ah confirmation waxa inoo ah sida aan hore u sheegi jirnay marka trade line isticmaalaysid waa inaad isticmaashaa pattern-kaasi muxuu ka dhigan yahay markastoo trade line la taabto lagu kor xidhmo candleka soo gelay nooc mu aha hadduu spinning top ahaa candlekaas waa inuu spinning top noqdo candleka ku xiga nooc mu aha isna buy uu sii noqoni ama sell buu sii noqoni sida taasaa runtii loo isticmaalaa trade line waana sida ugu saxan ee aad runtii ugaga guulaysan karto waxa loo yaqaano trade line okay waan iska dhaafi doonaa insha allah hal trade baan ku dari doonaa maadaama aynu kii aynu isgaraynay soo recover garanay oo hadda marayno 5 trade oo aynu runtii win garaynay iyo hal loss lix trade okay waxaan isku dayi doonaa inaan hal trade kala qaato kadib aan idin furo dhanka su'aalaha aan si toos insha allah idinku furo okay isaga laftarkiisa waxaan isku dayi doonaa inaan ku qaato waxa loo yaqaano ama reverse candle haddaan helo ama pattern ama trend line saddexdaas kii aynu helno aynu isagana insha allah ku qaadan doonaa ma kala jecelin okay lacagtan oo kale waxaad moodaa aysan sameynin waxa loo yaqaano trade saxa trade line waan saaran karaa laakiin trade line meeshaan saaran karaa waa korka ayaan kaga iman karaa on trade line ka saaran karaa sida idin muuqata maxaan leeyahay trade line here waan saaran karaa oo waayaan u saartay because qofka trade line ama structure runtii si fiican waqti u geliyo waa fahmi karaa sababta trade line ka u saartay suuq muxuu sameynayaa lower low mar kasta uu suuq lower low sameynayo waa mar kasta uu trade line ku diyaarinayo waan calaamadsan doonaa inta ka horeysa maxaan leeyahay lacaga kale ayaan baadhanaya inta ka horeysa ee lay imanayo ama lay soo xaqiijinayo meelahan calaamadsaday maxaan leeyahay okay kana kale strong candle buu ahaa level yimi laakiin waxaad arkaysaa in halkan inuu ka jiro wax loo yaqaano manipulation move wax loo yaqaano ama benguur baa ka jira okay on iska dhaafi doonaa trade kana kale lacag kale ayaan fiirin doonaa insha allah okay NCD USD baan fiirin doonaa okay NCD USD iyadana waxaan arkayaa runtii inay sameynayso trade line aan calaamadsaday hore ugu calaamadsanaa inay imanayso clear okay trade line hadda waa timi hadda trade kayga directly ma qaadanaya hadda trade-kaas trade line ku waa timi rejection wan hayaan trade-kaas ma qaadan karaa waa maya maxaan sugayaa waxaan sugayaa waxa uu yahay confirmation-kii xabadda markaan ridayo waa inaan confirmation helaa GB talacagtan kale iyadana waxay naga dilay
breakout bay samaysay oo sidaan doonayna may noqon waa iska dhaafi doonaa hadda lacagtan NCB loo yaqaano inuu dul taaganahay tradekeena way u qaadan weyne sababta inuu trade ka silka hadda u soo noqday ay u qaadan weyne waxa uu yahay ma hubna tradekan inuu buy u kici karo iyo inuu sell u kici karo because de wixii waxaynu nagu keliga trade garayna maaha waxaynu waa inaynu helnaa dad macnaa ina taageeraya si aynu u helno waa inaynu confirmation israacno hadda waxaad arkaysaa kandalka inuu iska noqday intii hore muxuu sameeyey qofka xitaa 5 second confirmation kusoo qaadan lahaa wuu geli lahaa tradekaas sababta uu geli lahaa maxay tahay sababta uu geli lahaa waxay tahay tradekaas wuxuu qofkaas u qaadan lahaa inuu kii saxda ah yahay maadaama intii hore sell lagu soo socday qofkaas wuxuu u qaadan lahaa inuu tradekaas kii saxda ah yahay laakiin feedhaha ayaa laga tumilaa feedhaha ayaa laga tumilaa oo waa lagu noqon lahaa maxaa keenaya lagugu noqdo waxaa keenaya inaad ruleska lagaaga baahnaa oo saxa aanad wada raacin ee aad ruleska qayb ka tagtay okay hadda halkan oo kale waa level iyada laftarkeeda waxaa lagu sameeyey as a breakout waa la move gareeyay amase waa la jiiray waa lama ixtiraamin okay bal annada meel kale ayaan baari doonaa insha allah waxaad moodaa inaysan aanan weli ka helin waxa loo yaqaano lacagtan oo kale aanan confirmation buuxa aanan ka helin tanoo kale iyada laftarkeeda level baa inoo calaamadsanaa laakiin levelkayga waxaan arkayaa in isagana aan la ixtiraamin amase la dhaafay oo la move gareeyey ayaad runtii arkaysaa okay waan iska saari doonaa lacagtan okay waxaan tegi doonaa tanoo kale maxay samaynaysaa runtii okay breakout waad kula dhaqmi karaysay laakiin breakout laftarkeeda macnaheeda ka dharka soo noqday breakout baad u qaadan karaysay maaha ma waa goorma waa haddii aad heli layd ruleskii breakoutka sida kandalka meesha ku xidhmay nooca uu yahay allahuma istacaanay 5 secondkii aynu dooni jirnay nooca uu yahay levelka la jebiyey inuu sax yahay inuu qalad yahay ruleskaasoo dhan ayaa runtii lagaga baahnaa inaad helayso ama se aad ogtahay okay waan iska dhaafi doonaa no problem okay waxaan soo qaban doonaa lacag kale okay waxaan isku dayi doonaa insha allah inaan hal trade ku daro ama laba trade ku daro insha allah si aan idinku furo dhanka su'aalaha aan insha allah idinku furo okay weli ma arko trade aan qaadan karo hadda lacagtan oo kale isha waxaan ka arkaa runtii trend qurux badan as a down trainer oo runtii sameynaya new trend line ama trend line yar oo daciif inuu bartaa ku jira ayaan arkaa trend line ka maxaan samayn doonaa waan calaamadin doonaa markaan calaamadiyo maxaan sameeyaa tradekayga ma directly baan u gelayaa waa maya maxaan sugayaa confirmation baan sugayaa waxaan sugi doonaa confirmation ayaan sugi doonaa in trade line-kayga la sameeyo markaan confirmation kaas helo maxaan gelayaa trade-ka waan qaadan doonaa haddii laakiin uu trade line-kii sameyn waayo confirmation maxaan leeyahay waan iska ignore garanaya hadda muxuu labadan dambe ayaan ka bilaabi doonaa maadaama saddex hore la isticmaalay okay halkaas iyo halkaasaan saari doonaa insha allah okay halkaasaan saari doonaa kan halkaasaan saari doonaa waxaan saarayaa waa body of the candle is not weak maaha bodiga ayaan saarayaa maxaan sugayaa in laygu soo noqdo marka laygu soo noqdo maxaan leeyahay waan trade garan doonaa insha allah haddaynu fursad keenno waa inaa qoran tahay okay okay aan sugi doonaa suuqa waxaan moodaa inuu slow motion ku jiro okay okay lacagtan oo kale laftarkeeda waa trade line iyaduna inoo calaamadsanaa ay runtii ka dhigan tahay iyada laftarkeeda maxaan sugayaa waxaan sugi doonaa insha allah in iyadana halkan oo kale la yimaado oo laygu soo noqdo trade line-kaas sababta hadda u calaamadiyey maxay tahay sababtan u calaamadiyey waxa weeyaan waxa uu sameynayey confirmation ahaan ayaan runtii ku hayay trade line-kaasi inuu sameynayey ama confirmationkiisu runtii uu yahay okay inuu sax yahay ayaan runtii ku hayay okay waxaan sugayaa runtii trade line-ka la yimaado halkanna waxa iga calaamadsanaa level iyo calaamadsanaa baa jiray oo iyada laftarkeeda runtii maxay yahay level ayay yahay maxay yahay level ayay runtii halkan yahay okay waan sugi doonaa haddaan confirmation ka helo waxaan samayn doonaa insha allah inaan trade gareeyo oo tradekayga si directly insha allah aan u qaato ayaan isku dayi doonaa okay weli ma arko waxa loo yaqaano confirmationkii ma arko waan arkaa confirmationskii qayb ka mid ah oo ah in levelkii la yimi iyo ruliskii kale dhan waan arkaa laakiin maxaan arkayaa in la jebiyey levelkii marka sidaas kale loo jebiyey maxaad leedahay ruliskeeni kale breakoutka iyo nidaamkeeni kale ayaa laga baahan yahay inaad isticmaasho oo aad runtii ku trade garayso laakiin haddii lagugu hoos xidho maxaa lagaaga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay runtii inaad garanayso ama se aad ku trade garayso waxa loo yaqaano qaybtii hore ee ahayd levelka continuationka iyo waxyaabahaas runtii lamid ah inaad ku trade garayso hadda levelkaygaas waxaad arkaysaa runtii in la jebiyey okay one more time haddii chance aynu ka helno waxaan isku dayi doonaa insha allah inaan dhowro chance ah trendy flower oo ah marka lagu kor xidhmo inaynu chance ka heli karno taas insha allah isku dayi doonaa maadaama levelkayga la jebiyey rulkiina saxana aanan ka helin okay si sashaka aynu soo gaabino okay waxaad arkaysaa okay ha soo noqday kandalkaasi
one more time soo noqdo kadibna hay soo buuxiyo gaabkayga yar okay okay we don't okay ma hayno runtii confirmationkeenu u baahnayn kama hayno meesha weli waxaan moodaa inuusan candlekaan doonayay igu soo noqon lahaa aanan hayn okay lacag trade aan saaray baa jirtay I don't know meel ay ku dambeysay tan ahayd baan laga yaabaa okay okay lacag baan trade saaray macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan weli ugu soo noqon meeshii trade kaan ugu talagalay mid kale ayaan isku dii doonaa inaan helo okay lacagta laftirkeeda insha allah isha ayaan ku hayn doonaa maadaama ay samaynayso chance ah the real breakout aan ka filaya inay samayso ama trade flowerka waxa loo yaqaano aan ka filaya inay samayso waan isku dii doonaa in iyadana chance ka gaado okay okay lacag kale ayaan eegi doonaa ama lacagaha kale ayaan isha marin doonaa lacagtan kale iyadana waxay kusoo socotaa level ayay kusoo socotaa runtii okay lacagtan waxaad moodaa inaysan diyaar ahayn AUD card waan iska ignore garayn doonaa maadaama ay in badan ka meereysatay meesha aan ugu talagalnay okay markaasna aynu dhowrno still ma hayo confirmation saxa ma hayo runtii confirmation saxa ma hayo okay lacagtan oo kale runtii level baa timi laakiin maan helin confirmationkii aan u baahnaa kama helin runtii kamaan helin confirmationkii aan u baahnaa runtii weli kamaan helin okay lacagtan oo kale gambaleelka iyaduna inoo soo dirtay ama meeshii aan ugu talagalnay soo gaadhay kaleer waa lacagta loo yaqaano GBPCH mar hore ayaynu runtii soo calaamadinay laakiin meeshii ay hadda soo gaadhay waa timi tradekaygu hadda waa taabtay kadibna rejection buu sameeyey tradekayga directly ma u qaadan karaa waa maya tradekayga directly ma u qaadan karaa waa maya hadda labadan lacagoodba ama saddexdan lacagoodba fursad ayay sameeyeen laakiin saddexdaba waxaan kala dooranaya waa confirmationska haddaan mid confirmation keena waan qaadanaya haddaan laba keena waan qaadanaya saddexdaba haddaynu keenana waa qaadan doonaa insha allah laakiin maxay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay waa confirmationka ayayna kala hagi doonaa tradekaasi kii loo baahnaa ma yahay mise ma aha okay hadda lacagtan oo kale yab still waxaad moodaa kaleer igana trade yab okay good hadda tan waa trade garayn doonaa hadda lacagtaas GBPCHF iyada waan trade gareeyay sababtaan ku trade gareeyay maxay tahay waxaan ku trade gareeyay waxa loo yaqaano trade line ayaan ku trade gareeyay sababtaan u trade gareeyna waa move-ka ka dhacayo trade line-ka lacagtan oo kale trade flower baan ka doonayay laakiin waxaad arkaysaa candle-kii aan doonayay inuu meesha ku xidhnaan inta badan sugayba inuu sidaynu doonayno u shaqayn waayo meeshii bas ka soo dhaafo orod soo jiray tanna maxaynu arkaynaa inaynu ka weynay waxa loo yaqaano the best reversal candle ama candle reversal candle oo candlada wanaagsan ee saxda ah inaynu ka weynay oo ah candle qalab ah okay we gonna win sida u muuqata maadaama candleku booday intaan ugu talagalnay waxaa u muuqata inaynu win garayn doono sababta ay u qaadani waa maxay waa trade line-keena oo saxa iyo waxa loo yaqaano mar kasta oo trade line-ka la yimaado oo candle sali soo galo suuqu muxuu ku dhaqaaqayay waxa uu ku dhaqaaqayay down trend ama se suuqu waxa uu ku sii soconayay waxa uu ahaa inuu suuqu hoos ama se u sii socdo hoos uu runtii u sii socdo win win sida muuqata waa win garaynay okay okay sideeda trade insha Allah isku soo gabagabayn doonaa maybe 7 trade baan filayaa yihiin si aan su'aalaha idinku furo waxaan soo share garin doonaa insha Allah dhanka time frame-ka dhanka Telegram-ka soo share garin doonaa si insha Allah aan soo eegno su'aalihiina iyo runtii waxyaabihii ardaydu soo direen ama sabadiskii ardaydu soo direen ayaan insha Allah isha marin doonaa kadibna waxaan idin furi doonaa xagga su'aalaha ayaan insha Allah idin furi doonaa waxaan ka soo bilaabi doonaa insha Allah su'aalaha ama qoraalada ama sawirada ardaydu soo direen waxaan ka bilaabi doonaa halkii suuqeen dambeysay oo filayo inay ahayd okay okay inaan daafado laga yaabaa waxaan filayaa xiisadii suuqeen dambeysay waxay ku ekayd okay okay waan daafadaan filayaaba aan eega bartaanka ama taariikhda 8 June 8 June xiisad baa ka dambeysay sidaan filayo okay waxaan filayaa okay kale xiisadiis weekend dambeysay inay tan ahayd ayaan filayaa oo xiisadiis weekend dambeysay runtii inay ahayd okay waatana xiisadiis weekend dambeysay runtii ama cashirkiis weekend dambeeyay soo diray kan buu ahaa macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay inta dambaba waa sabab iskaartay soo dirayeen runtii ay noo soo dirayeen ayay ahaayeen okay kale halkan insha Allah ka bilaabi doonaa okay kadibna su'aalaha ayaan si toos ah ku furi doonaa insha Allah okay kanoo kale waa Mr. Khadar baan filayaa ee ugu horeeya trade kan uu qaatay sida ii muuqata waxa uu ku qaatay waxa loo yaqaano Allah musta'aanay breakout-ka ayuu ku qaatay okay
ardaygan oo kale tirirkaas runtii ma xaqiijin karo laakiin maadaama meeshu tahay aad u ururiyey ama sidoo meesha soo yareeyey ardaygan oo kale waxa uu tirirkaas ku qaatay sida ii muuqata 5 seeking confirmation buu ku qaatay waan filayaa ama waxa loo yaqaano pre-codeka ayuu runtii ku qaatay kaleer laakiin waa la iskareeyey okay ardaygan oo kale isagoo structure buu soo muujiyey ardaygan oo kale tirirkan waxa uu ku qaatay waa nidaamka hadda aynu isticmaalaynay ahaa third lane-ka ayuu runtii ardaygaas ku qaatay kaleer isagana waan hambalyeynaya okay waa structure hadda waxaan doonayaa inta badan inaan soo helo waxyaabaha losseska ah ama tiririska runtii losska ah ayaan doonayaa dul istaago ee ardaygu qaldanaa ardayga oo qaldan ayaa la iskareeyey mise ardayga oo saxan ayaa la iskareeyey because ardaygu xitaa haddii uu hadda isagoo saxan la iskareeyo macnaheedu waxay ka dhigan tahay ardaygaas nidaamku waa fahamsan yahay oo 90% ama 80 waa u shaqaynayaa hal tirir ama laba tirir la iskareeyey macnaheedu suuqa ayaa qasabay tahay inaad mar walba wax la iskareyso laakiin waa inaad garanayso waxaad la iskareysay ma sax waa mise waa qalad ardaygan oo kale okay waan dhaafayaa ardaygan oo kale isagana masha Allah historygiisa waa qurux badan yahay waan dhaafi doonaa ardaygan oo kale wuxuu isticmaalayaa continuation move laakiin ma hayo waxa loo yaqaano confirmation okay kana kale ayaan nigi doonaa insha Allah ardaygan oo kale waxa uu qaatay reversal kan double tirirkaas ku qaatay tirirka uu qaatana waa kana hore waxaynu sheegnay candle marka uu yahay inverted hammerka iyo waxa loo yaqaano Allahumma ista'aanay iyo waxa loo yaqaano shooting star waa kala duwan yihiin shooting star wuxuu ka yahay waa ka strongisan yahay ama waa ka fiican yahay this one hal rule aan kugu daro oo ah haddii inverted hammerkaagu meesha uu ka bilowday hadda tradekan oo kale anigu waa tradekan la iskareeyay hadda markii dhaweydo kale waa same waa same kaliya candladu ma kala duwan laakiin waa isku macna move halkan ka eegay waxaan ka eegay candleka uu ka bilowday maadaama candleka uu ka bilowday yahay weak candlekana yahay shooting star ku tusay in wali meesha buyers ku jiraan waxay ka dhigan tahay in tradekaasi kor u sii socon karo laakiin haddii hadda strong candle uu ka bilaabmi lahayo kale inaad wingareyn lahayd ayay runtii u badan tahay waana wax aan mar badan tijaabiyey okay ardaygan oo kale waxa uu isticmaalay physical confirmation ma filayaa waana draway kaga dhacday ardaygan oo kale waa saxan yahay sida kale laakiin late entry baa ku dhacday okay late entry inta kale sax weeyaan laakiin qaladku waxa uu ka yimaada inta badan candle kaad isticmaalayso oo strong candle ardaygan oo kale wuxuu isticmaalay breakout ardaygan oo kale tradekaas waxa uu qaatay ma garan karo okay on dhaafi doonaa tradekan oo kale ama ardaygan oo kale waxa uu tradekan ku qaatay waan filayaa waxa loo yaqaano okay ardaygan tradekan waxa uu ku qaatay haddii uu tradekaas uu qaatay kan yahay waxa uu ku qaatay as a breakout ayuu runtii ku qaatay walow candlekan uu yahay candle yaro daciifa is not the real candle ma aha candlekii saxda ahaa ee lagu saxsanaa laakiin waxay haddii tradekan aad iskareyso inaad kan qaadato maadaama suuq uu samaynayo trend flower ahaan inaad ku qaadato ayay runtii ahay okay and dhaafo ardaygan oo kale haddaan eego okay 5 second confirmation buu jooga ardaygaas say muuqata maxaa uu ku qaatay this one ayuu 5 second confirmation ahaan u qaatay haddana waa la iskareeyey laakiin waxaa ardaygaas oo kale ma arkayo okay yab hadda candlekaas macna ardaygaas waa ardaygan ma filayaa ama labadaasi inay isku mid yihiin tradekaas isku mid yihiin ayaa runtii muuqata waan dhaafi doonaa ardaygan kale waa wingareeyey isagu okay trading course waa wingareeyey waan dhaafi doonaa tradeska loss ka waan eegi doonaa insha Allah ardaygan oo kale waxa uu ku wingareeyey isaguna uu isticmaalay breakout laakiin ardaydani waxaan arkaa qaladka koowaad ee geliyaan inuu yahay candleka meesha jabiyey inuusan ahayn candlekii loo baahnaa candlekan meesha jabinaya inuu daciif yahay baa meesha ka muuqata candlekan waxaan kugu sheegay inuu yahay strong candle inuu kuu yahay oo candle runtii weyn uu kuu yahay ardaygan kale wuxuu isticmaalay waxa loo yaqaano strong level uu isticmaalay kale wuxuu isticmaalay another strong level kale okay ardaygan kale waxa uu isticmaalay okay ardaygaas kale wuxuu isticmaalay ma garan karo ardaygan kale wuxuu isticmaalay level wada arkaysa candlekaas marka uu sameysmo sida runtii meesha looga soo noqonayo ama sida loo ixtiraamayo ardaygan kale waxa uu isticmaalay here waxaan filayaa ardaygaas isaguna inuu breakout isticmaalay ayaan filayaa okay ardaygan kale laftirkiisa waxa uu isticmaalay level uu isticmaalay waxaan isku dayay inaan soo helo tradeska inta badan ardaydu qaldeen macna ardaygu haddii uu loss gareeyay laakiin isagu saxan yahay no problem dhib male laakiin waxa qalada ardaygu qaldan inuu hadana sii qalda ayaa qaldan hadda ardaygan kale u fiirso tradekan uu qaatay
sababta uu qaatay waxay ahayd day trade ku qaadan lahaa waa kan 1313 kan buu ahaa laakiin hadda ardaygan kale lama cudur daari karo because waa qaldan yahay ka dhigan tahay okay ardaygan kale isaguna waxa uu qaatay waan filayaa late training kaga dhacday waan filayaa trade-kaasi sida muuqata ma sha Allah ardaygaas kale isaguna waa fiican yahay trade-kiisu waa waaweyn marka laga reebo kan oo uu qaatay waxa loo yaqaano okay clear ardaygan kale wuxuu qaatay waxa loo yaqaano button ayuu ku qaatay oo ku trade gareynayay waa sax yahay laakiin trade-kaasi muxuu noqday suuqa ayaysan interest gareynin cidii suuqa ka xaynay because kan waa kan kana waa kan kana nisaas kala dhacday yahay markii sana kala dhacday waxa weeyaan fursadaha kale ardaygaas waa win gareynaya hadda ardaygan kale waxaad arkaysaa in fursadihii kale win gareeyay laakiin taas uu qalday mid uu qaldayna macnaheedu ma aha trades-ki kala dhan ayaa loo daadinayaa ama loo tuurayaa macnaheedu ma aha okay trades-ka runtii sana kala ah iyaguna runtii waa sax baan filayaa okay waxa ardaygaas isticmaalay waxa loo yaqaano button ayuu intaas isticmaalayay waan dhaafi doonaa okay waxaan u gudbi doonaa insha Allah okay trades-ki ma gudbi doonaa intaana trades-ki insha Allah gudbin session-ka 1 minute baad muddaa inuu ka hadhay waxaan samayn doonaa insha Allah session kale ama mid kale aan idin soo diri doonaa kaasna insha Allah ku dhameystiri doonaa inta inoo harsan si kale okay on for recording-ka waa ilaa marka hore no problem ardaygan kale runtii waxa uu qaatay button ayuu isticmaalayay waxaana ii muuqata button-ka uu isticmaalay late entry ama candle-ki uu runtii ku noqday waxa loo yaqaano as doji macnaheedu adoo saxan haddaad loskarayso macnaheedu waxay ka dhigan tahay suuqa ciddii kula midkahayd ee interest gareynaysa ayaan interest gareynin laakiin sababtaan hadda u hubinaya waxa weeyaan sababtaan u leeyahay hadda aan traderska loska u hubinaya in leeyahay ardayga qaldanaa mise ardayga qaldan ayaa loskareeyay waxa ay tahay ardaygu haddii uu saxan yahay oo isagoo saxan loskareeyay ardayga macnaheedu waxa ka dhigan tahay systemka inuu wax ka fahansan yahay mise wada fahansan yahay oo boqolkiiba 90 ama 95 uu garan karayo inta soo hadhay uu loskareyn karayo laakiin ardaygii hadiiba uu qaldan yahay isagoo qaldanna uu sii loskareeyo ama isagoo wingareeyo ardaygaas wixii u shaqeyn doona wax shaqeyn doona ma noqon doona wax shaqeyn doona ma noqon doona okay waan dhaafi doonaa insha Allah waxaan tagi doonaa kan kale ardayga isagoo saxan ayuu wingareeyay waan filayaa maadaama halkan uu ku yaallo waxa loo yaqaano level okay waan dhaafi doonaa trade-ka waan dhaafi doonaa ardayga waxa uu isticmaalayaa breakout sida muuqata ardaygan kale level buu isticmaalay with confirmation breakout sida muuqata ardaygan kale sorry dibadda soo noqday ardaygan kale waxa uu isticmaalay waan filayaa isaguna inuu yahay waxa loo yaqaan trend flower laakiin inuu ka maqan yahay ardayga ayuu muuqata 5 second confirmation okay waan dhaafi doonaa isagana okay ardaygan kale halkaas hadaad level qabsatid slot level here slot level runtii ma aha okay ardaygaas su'aalahan buu soo diray laakiin ardaygaasi meeshaasi ma aha level okay ardayga kale wuxuu isticmaalay trade line buu isticmaalay okay ardayga kale wuxuu isticmaalay level okay runtii trades waa badan yihiin lagama geeyo karo waxaan isku dayaa kuwa losses-ka inaan isha saaro ama inta badan aan flow gareeyo ardayga kale wuxuu isticmaalay okay ardayga kale isaga ayaa siisa u qaldan ama markiis hore ayuu qaldan yahay ardayga kale wuxuu isticmaalay trade line ardayga kale wuxuu isticmaalay level ayuu isticmaalay laakiin levelka waxa ka dhacay candle-ka imkaanimay iyo dojiga ayaa sababta israacay okay waxaan tagayaa losses-ka okay aad baan runtii ugu hambalyeynaya ardayda runtii nidaamka runtii waqti siisay macnaheeda ardayda haddaad aragto arday runtii sida history-giisu kale u yahay ama history-giisu sida kale u yahay ama trades badan runtii uu garaynaya ardaygaas macnaheedu waxay ka dhigan kartaa inuu sameeyay patience-kii suuqa looga baahnaa waqtigii looga baahnaa ama fahankii looga baahnaana runtii uu ka qaatay sugitaanna uu runtii ku daray ardayga uu garaynaya inta taas ay runtii ku xiran tahay qof kastana uu garayn karayaa kaliya waa inuu confirmation iska raaco ardayga kale waxaan arkayaa inuu breakout sidan ku laskareeyay ardayga kale waxaan arkayaa inuu isagu isticmaalay button sorry level oo trade u dambeeyay baan oran karaa intaas insha Allah kaga gudbi doonaa sadaiska insha Allah soo dirteen aad baan ugu hambalyeynaya sida runtii marka labaad isku wadaagsaneysaan sadaiska u wadaagaysaan runtii tradeska wadaagteen runtii u wadaagaysaan iskula eegaysaan aad baan ugu hambalyeynaya runtii horena ugu sii socda tradeskaga arday kasta waxaan isku dayay inuu soo wadaago waa winska ah iyo kuwa losseska si ay isaga ugu noqoto
dhiirigelin runtii wixii saxa iyo wixii qaladana aynu ku taageerno insha allah. waxaan idin furi doonaa dhanka commissionska arday kasta wixii su-aal uu qabo insha allah ila soo wadaago si aynu usoo gabagabeyno insha allah session. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مختار waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markaad dhigatid trainline kasta uu sheega abu socda ama dhowna socda macnaha marka soo taabto wiilka miyaad sheegalaysaa kanal ku xiga mise markuu boodiga ku xirmo labada kii bay galaysaa hadeertan sida tariirada ku badanaysay waxaa ka muuqatay soo taabto wiig inaad gashay macnaheedu la raacayo waxay ku xidhan tahay gaab macnaa kanalka hadduu horta rejectionkiisu meesha soo taabto oo already rejection soo taabto waxaad sugaysaa waa confirmation kandalkii. haddaad confirmation kandalkiina hesho tirirkaaga direct lagu qaadanaysa. haddii aad confirmation kandalkii weliyaad sugaysa in meesha la buuxiyo ama meesha la dhamaystiro. suuqu tusaale ahaan meeshii waa ka soo dhacay waa ku soo noqday. marka uu meeshii ku soo noqdo waxaa sugayay inuu meeshii horta meeshii yimaado. halkan hadduu confirmation ka dhacay tirirkayga maan qaadanay meeshii waa yimi kandalkii meeshii intuu taabtay ayuu rejection yar sameeyey bartaas ku xidhnay tusaale ahaan bartaasoo ku xidhnay maxaa sugaya confirmation kandal. confirmation kandalkaygii isagaa meesha buuxinaya ka dhigan tahay. confirmation kandalkii ayaa meesha buuxinaya tirada ku xigan qaadanaya. laakiin kandalkani hadduu xitaa reversal kandal noqday haddii kale marnaba maan gelin. kaleer صح. okay sida taas u isticmaalsan. okay waxaan kaloo weydiinay ustaad صح. waxaan ku weydiinayaa trainline baad dhigatay oo suuqaba ama dhowna baad saaratay markii hore meeshii shay koowaad waa xaqiiqso macna meel jibiyay baad saaratay tii labaad baa wuxuu noqday hada suuqab train ka soo qaado wuxuu noqday tii labaad waxa noqotay halkan loo weyn oo bias kaas oo weyn wuxuu jibiyay higher kii horreeyay uu jibiyay markaasna ma saaran karaayo trainline aan saaran karaayo kii hore uu saxnaa halkan ama laba kan saddex kan baa ka bilaabtay trainline kii macna qaybtii hore kii labaadna halkan loo weyn baa ka bilowday. okay taas waxay ku xidhan structure-kii suuqa. structure-kii suuqa la seego waxay ku xidhan tahay su'aalahan suuqa waa kana meesha ka saaray previous higher low barta kale ku jira ayuu meesha ka saaray waa soo noqodkii bartan buu ka kacaysay inuu ognahay oo saas sameeyay ama hal kandal ha noqdo ama saddex kandal ha noqdo ama 10 kandal ha noqdaan waa inuu halkaas u jibiyaa hadduu halkaas jibiyo macnaheedu trader ma saaran kartaa. hadduusan jebin trader ma saaran kartaa. kaleer okay waxaan kaloo weydiinaya ustaad meelba waxa ay sheeg level baad dhigatay levelkii waa laga soo noqday oo macnaha arkaan reversal ka heshay mar labaad haddii lagu soo noqdo levelkii haddana mar labaad ma trade garan karaa. okay waxaan ka hay su-aashaada halkan baan level u qabsaday waa la yimi waan ka trade gareeyey ama si aan u weyn baa laga noqday oo uu dhaafay marka kale u yimaado ma ka trade garan karaa. okay isma maya kama trade garan kartid. sababtaad ugu trade garan karin waxa weeyaan meeshan ka baxay freshness of the zone meeshan hore ayaa looga trade gareeyey kama trade garan kartid. dad ka trade gareysa markuu shaqaysana markaa kuma shaqayn doonto. keliya waxaad ka trade garan kartaa goorma marka aan mar hore laga trade garay suuqa intuu kusoo noqon kale intuu taabtay ama afka usoo saaray uu ka noqday marka kale intuu caadi u yimaad confirmation ka heshay. laakiin haddaad markana confirmation ka heshay ma trade garan kartid. ustaad waxaan kaloo weydiinayaa baatanka iyo trainlineka imisa jeer baa qaadan karaa macnaha markii leefka igu soo noqdo markii koowaad waa qaatada markii saddexaad aan laba jeer confirmation ah markii saddexaadna waan qaatay baatanka sidoo kaleasna mar baan helay markii labaadna waan qaatay jeer marka qaadan kara isku helayn kara waxaad qaadan kartaa ilaa inta samaysmaya haddii mar samaysmaya haddii laba samaysmaya haddii afar jeer samaysmaya mar kasta uu soo noqdo oo uu samaysmo macnaheedu waa inuu structure-ku ku saxan yahay waa inuusan kii hore ahayn. mar kasta uu ku saxan yahay oo qaadanaysa.
هي انت تسوي كلا okay استاذ waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo su'aal hadda ii sheegay casharkan casharadii xogaa yar ka horreeyay kan hadda kii ugu dambeysay صح laba cashar aan ku wariyay laba bahan صح laba tiri سؤاشاس kan أدفع ويرك وبايا كل سؤاشا macnaha hadda groupka dhexdiisa waxaan soo jeedin kari laba level marka laba level baa inay tigtid xogaa hadda inuu ku hooseeyaan kaliya kan ugu dambeeya seekada ugu dambeeya مركا ما إيميجيسكا ها كي مساعدة ترى ها hoos u bax ugu dambeeyay wax yar ها waa kuwan okay كان kan may mid ka koreeya labada ka koreeya كان way ka sii kartaa kan ka koreeya ها labadaas weeyaan okay level كما خام يا من level ها شام ماشي kan strong mi hadda level meeshaan saartay ee ka weyn jiray level strong ma yahay yes هو level strong لكن level صح معه هو strong هو ضروري اسك قيبه كوتا لكن صح معه سبب توصل صح وهي وحوية معنى عكل لما تشبندي بريك اوت أهم بلو تشبي لكن مع لو تشبي اسرد هير بريك اوت لما تشبي هير بريك اوت وإن كان لسه ماشي كل الحماية ضعفان ما كل هي بريك اوت لما تشبيها أفكو كلا بحي واسك صنع ماشي الدول سنة تشبيها كم بعيد عادي لما تشبي halka kanalkeerka cagarka ku jira ma dhihi karo waalidkii هل كان ما هي واحد كنا قطع 10 maadaama lagu استراكشر hakaday ها 10 استراكشر كنا قطع 10 كان واحد بدل مرتين كذا هدي هل كان ماشي سوق قلب معها ماشي وين يقول باق عالية ترى أو كنا كلا هذا كنا كنا منون كرتا هذا كنا كلا وصول ما كرتا كنا كلا وصول ما كرتا مسوي ما كرتا لكن كان هو هل كان دل أوكي maanta ay kan kala tag خلاص يكسر إيه هل كان wuu kasii koreeya may kii waa may kan ma كم يا ها أوكي سؤال يقول دي مكاس meesha hadda xariijinta koro dheer cad ay saaran tahay level saxan ma strong هذيك محي قلتها anigu ila tahay واي مكاس هذا السؤال شنو كلا فهمتي ليفل كان هو ليفل كليرا macnaheedu mukhtaar waxaan filayaa inuu adeeg hayra qaldan yihiin wax loo yaqaano markaan runtii su'aalaha gaar ahaan su'aalaha aad runtii fiican yihiin oo badan yihiin laakiin su'aalaha structure-ka weydiinayso macnaa inta badan waxay u eegtahay in casharada structure-ka aad waqti badan gelin ama aanad runtii sida loo doonaya aad fahmin aanad fahmin sababto ay tahay dee levelkan hadda clear level waa clear level waayu clear level u yahay because dee suuqan wuxuu kusoo soconaya muxuu ahaa move ama se bullback buu halkan ka sameeyey maadaama bullback ka sameeyey bullbackna saddex kanal iyo wax ka badan weeyaan waa la jebiyey maadaama la jebiyey hadda dhaqaaqa jebiyena waa kana halkan dhala soo dhex galo laakiin one move ka meesha jebiyey soo noqodka confirmation man keegana waa breakout waa trade garanaya kale okay ardada kale xogaa marmar baa shaki iga galaayo marka waa saasan ku weydiinaya okay good ardada kale الو السلام عليكم استاذي. عليه السلام. استاذ واحمد سوق مركز سترونج ليفل سوق دغنيسيد marba waxaan ka maqlaa adoo leh waa suuq waanusan up train ama down train ahayn meesha strong level ku qabsanaysid صح marka ma suuqan socdo miyaa ula jeedaa waa inuusan aad dhigan karin mas suuq hore meel hore hadan soo helo soo ma dhigan karo ma dhigan kartaa suuq structure-kiisu ku xidhan tahay macna de suuqiyo oo real down train ku socdaba oo aan meel kale oo laga saarta aan lahayn inaad hadana ka sii daydadaa qalada resistance ka ana bullbackisi
bul baagi yarka ma saaran ka dhiweeye kale hadda suuqan kale halkan kale ayaa maxaad aragtay waa move waa soo noqday waxaanad saaran karin halkan baanad saaran karin laakiin hadduu halkan jebiso oo kan meesha ka saaro waad saaran kartaa weeyaan iyo kaa hor istaagaya waa garta hadda meeshaas kore inkastoo aan hadda su-aashaadii xoogaa ka dhex fahmay laakiin intii wax lagu weydiinaya ka dhex fahmay laakiin haddana isi biyaani haddii meeshaas lagu jebiye ka waran kandhal hadduu hal kandhal jebiyo hal kandhal jebiyo fake break out oo kale camal hadday ka dhacdo strong level ma u qabsan karaa maya waa in real breakout martaan hadda ahay waa in real breakout loo jebiyaa isma fake breakout in loo jebiyo maaha real breakout waa in loo jebiyaa real breakout marka waxaa noqon kara kandhal ku dul xirmo oo kale aduu hal kandhal banaanka ka furmay waa inuu baxo kandhal banaanka ka furmo ka xidhmaa this is a real breakout waan gartay su-aal kalena waan ku weydiinayaa batinkii momentumka ustaadow xoogay weli waxbaa isaga kay qasan dhowr jeer adoo markaa u xiraysid shuruudaha waxaad tiri momentum inaa haysatid right iyo liftiba ah waa inaa haysatid batin continuationna waa inaa haysatid continuation maxaa ka wadaa continuation waxaan ka wadaa candleskeedna aan hore soo qaadanay oo tusaale ahaan haddii meeshu sidan tahay okay tusaale ahaan suuqu sel buu kusoo socday waxaa samaysmay one candle buy oo soo galay kadibna waxaa soo galay another move sell baa soo galay haddii mar kale candlekan oo kale dib u dhaco dee waa traderkaaga barta sii trade garanaysa soo maaha macnaa trade nidaamkan hore ayuu soo dhacay bay ka dhigantay mar hore ayuu soo dhacay hadda markaa traderka waa trade garan leed soo maaha u kaadi marka candleka continuationka hadda candlekaas sagaalkii candle ma ahane dee soo tahay macnaa baatan maaha kani baatinka waan fahmay oo suuqaas candle soo dhex gelhayaan u fahmay okay baatanku ma aha suuqa candle soo dhex gelaya maaha waa candle hore u dhacay oo dib u soo noqonaya candle soo dhex gelaya marka macnaha warkoo duuduuban candlekaas aad qaadanaysid oo aad soo laalaabanahayay candle weyn ha noqdo sagaalkii candle mid ah ha noqdo mid yar ha noqdo mid dhexdhexaad ha noqdo adu waa inuu hadday laba ahaayeenna laba yihiin hadday mid yihiinna mid ahaayeen miya waa inay sidii ay usoo dhaceen usoo noqdaan laakiin hadda dee su-aashaad weydiisay kama waa jawaabiga haye okay hadda markay sidan tahay waa baatankii hadduu mar kale soo noqdo oo candle buy bartan soo galo kanoo kale oo sidani oo ruuskii kalena saxan yihiin laftiga ka dhacay maxaad sugaysay confirmation baa sugaysay aha one cell inuu soo galo si aad traderkaaga aad usii raacdo this is a button laakiin continuationku waxa weeyaan candlekan laftarkiisa ayaa noqonaya continuation candle oo continuation candle maxaa inoo noqonaya dee continuation candle waa sagaalkii candle ka mid ah hadda candlekani ma aha sagaalkii candle mid ka mid ah waa candle caadi ah kan laftarkiisa ayaa noqonaya sagaalkii candle ka mid ka mid ah ama kan mid ka mid ah ama second confirmation kaaba sagaalkii candle mid ka mid ah noqonaya taasaa laga wadaa continuation ee continuation kan maaha macnaha baatinka soo noqonaya marka continuation noqon kara markuu continuation ka noqon ka powerfulsan yahay marka uusan continuation ka ahayn weyn macnaheedu maya macnuhu waa saas miyaa in badan baan ustaada ku khasaaray anoo wixii ii saxan yihiin baatinkii soo dhacayay marka casharadaadii markaan dib ugu noqdaan waxaan ka maqlaa adoo wala habba continuation waa inaa haysatid marka hadda ka bacdi midaan waxaan noqonaysaa taas xooga badan baan qabsanaya haye ardaan u banaynayaa mahadsan ustaadii okay thank you ardayda kale waxaan filayaa inaysan su-aalo kale jirin siday muuqata waan iska soo gabagabeyn doonaa insha allah sessionka intaynu insha allah xisatana kala kulmi doono السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عشرة إن شاء الله سيقول ريكورد من الموضوع إن شاء الله. أوكي.